السلام عليكم dhammaan daawadayaasha kanaalka Eliiska Dunida waddanka Spain dhulkii Islaamka ee Andalus ku soo dhawaada tiro xaqiiqooyin ah oo idinkaga dahsoonaan kara dalka Spain Spain waa dawlad xubin ka ah midowga Yurub oo dhacda koonfur bari qaaradda Yurub jasiirad u ekaha Iberia bariga iyo koonfurta waxaa daris kala ah badda cad ee dhexe waqooyigana waxaa xuduud kale leh Faransiiska Andorra iyo gacan biyoodka Biscay waa dawladda labaad ee ugu dhulka weyn Yurubta galbeed marka laga soo tago Faransiiska badka waddanka Spain ayaa ah 500,000 kilomitir square luqadda inta badan dhulka Spain lagaga hadlo waa luqadda Isbaanishka luqadda Isbaanishka waxaa ku hadla ku dhawaad nus bilyan waa 500 milyan oo qof waa luqadda inta badan dadka koonfurta America ay ku hadlaan asalka luqadan iyo faafinteeda waxa iska leh Spain tirada dadka Spain waxa lagu qiyaasaa 47 milyan oo qof boqolkiiba 88 waa dad ku nool gudaha waddanka Spain inta kale ee soo hartay waa dad ku kala nool dunida inteeda kale afartii sano ee la soo dhaafay waddanka Spain waxa ku soo qulqulayay dalxiisayaal aad u tiro badan wuxuuna noqday waddanka saddexaad ee dalxiisayaasha ugu badan hantiya marka laga soo tago wadamada Mareykanka iyo Faransiiska waxa ka soo galay dakhli gaaraya 40 bilyan oo euro garoonka diyaaradaha ee caasimadda waddanka Spain ee Madrid waa mid ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan caalamka sanadkiina waxa ka safra dad gaaraya 42 milyan oo qof waana garoonka 11aad ee ugu mashquulka badan caalamka waddanka Spain waxa lagu tiriyaa wadamada ugu horumarsan caalamka halka dhaqaalihiisana uu yahay waddanka sagaalaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka marka laga hadlayo dakhliga guud ee soo gala waddanka ama waxa loo yaqaan GDP sanadihii hore ee lixdamaadkii Spain waxa lagu magacaabi jiray mucjisadii dhaqaalaha wuxuuna ahaa waddan dhaqaale badan oo aad uga horumaray xagga ganacsiga lacagta laga isticmaalo Spain xilligan waa euro laakiin 1868 ilaa 2002 waxa laga isticmaali jiray lacagta peseto laakiin taariikhdaas dambe ayaa la bedelay euro minaaradda ugu da'da weyn caalamka waa minaaradda Burj Khalifa waxa ay ku taallaa dalka Spain waxa la dhisay qarnigii koowaad ee taariikhda miilaadiga ah ilaa iyo haddana isma bedelin waa mid dhisan oo taagan naadiga Real Madrid waa naadiga ugu shacbiyadda badan caalamka guud ahaan taageerayaasha naadigan ayaa lagu qiyaasaa 228 milyan oo qof kuwaas oo ku kala nool daafaha caalamka sidoo kale waa naadiga ugu qanisan caalamka qiimaha naadigan ayaa la sheegay inuu yahay 3.3 bilyan oo dollar garoonka ay ku ciyaaraan naadigan waxa lagu magacaabaa Santiago Bernabeu waxa uu ku yaalaa caasimadda waddanka ee Madrid